Hiro Onoda wuxuu ahaa xidigle ka tirsan ciidamada dalka Japan dagaalkii labaad ee dunida sanadii 1944. dagaalkii labaad ayaa dhamaaday, laakiin isagu wuxuu sii dagaalamayay 30 sano oo kale. waxaa loo xil saaray howlgal sirdoon jasiiradda Labonge ee Philippines 1944. taliyihiisi ayaa u sheegay weligaa ha isdhiibin, wax kasta oo dhaca dartaa ayaan u soo noqon doonaa. waxaa loo daadiyay fariimo ogeysiina inuu dagaalku dhammaaday, laakiin wuu iska indha tiray. markii dawladda Japan ay isu dhiibtay xulafadii Mareykanku uu hogaaminayay ee ka cudud roonaatay, Onoda iyo 3 askari ayaa duurka galay. mid ka mid ah ayaa isdhiibay oo u soo laabtay dalka Japan, wuxuuna u sheegay ciidamada Japan in saaxiibadii ay duurka galeen. ana bilowday howlgallo lagu raadinayay, balse wax yar kadib waxaa la shaaciyay inay geeriyoodeen Onoda iyo saaxiibadii. laakiin wuxuu la dagaalamay ciidanka dalka Philippines isagoo dhowr askari ka dilay, isla markaana halkaa uu ku geeriyooday saaxiibkiis sanadkii 1972. Japan waxay go'aansatay inay mar labaad raadiso, waxayna dirtay diyaarado dul heehaaba jasiiradda Labonge ee Philippines. waxayna daadinayeen waraaqo digniin ah oo ku amrayay inuu isdhiibo maadaama dagaalkii uu dhammaaday. balse Onoda arrintaasi wuu iska diiday, isagoo u gartay ama u qaatay xeelado la doonayo in lagu qabto. kadib waxaa loo diray xubno qoyskiisa ka mid ah si ay ugu qanciyaan inuu isdhiibo oo uu joojiyo dagaalka, balse mar labaad ayuu taana iska diiday. waxa uuna sii haystay amarka taliyihiisii in uusan marnaba isdhiibin, wuxuuna sii watay dagaalkiisii ilaa Maars 1974. markaasoo uu u tegay taliyihiisii hore ee milatariga, uuna ku amray inuu dagaalka joojiyo, amarkaasoo uu fuliyay Onoda. Onoda waa askarigii ugu dambeeyay ee isdhiiba dalka Japan, kadibna wuxuu ka faa'iidaystay cafis uu fidiyay madaxweynaha dalka Philippines. wuxuu u qaxay dalka Brazil oo uu ka soo laabtay 1984, isagoo furay akadeemiyad ay dhalinyaradu ka bartaan farsamooyinka badbaadada. Onoda wuxuu geeriyooday isagoo 91 jir ah sanadkii 2014. haddaba daawade, maxay kula tahay sababta uu go'aankan u qaatay iyo cashirka aan ka baran karno go'aankiisa? fadlan daawade page-ka like star, YouTube-kana subscribe. mahadsanid.